قبيل ماله قبل وقبر الصوماليات ويا قبيل لونس بن مايو waxay ka dhimatay qabiil Soomaaliyeed bay ka dhimatay qoomiyadda Soomaaliyeed ayay ka dhimatay laakiin ninka gabadha dilay waxa weeye gabar Soomaaliyeed buu dilay annaga justice ka raadinayno annaga every talaabo walba uu qaadayo daba dhiganayna right now halka markay marayso Mareykanka waad ka carari kartaa dhageyso America waxa la yiraahdaa you can run but you can't hide magarasho waad carari kartaa waad ordi kartaa laakiin ma dhuuman kartid kuma dhax dhuuman kartid Mareykanka ma dhuuman kartid laakiin waad carari kartaa diyaarad waa raaci kartaa laakiin ma dhuuman kartid mana dhuumanayso okay dawladda Ethiopia already Ethiopia ka dagtay meeshu ninkan kollay deegaan ahaan koonfur galbeed buu ka soo jeedaa sidaan maqlay waxaa la rabaa sawirkiisa iyo fiidiyoyadiisa waad aragteen Soomaali Maxamed aad dhageyst iyo waliba gabadha ehelkeeda sawiradiisa waad aragteen fiidiyoyada gabadha uu la soo duubayna waad aragteen waxaan la hadlayaa dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia kollay ilaa hadda kama uusan bixin sida aan filayo ama aan dareemayo in la socdo wali Addis Ababa inuu san ka bixin oo uu raadinayo transportation-kiisi iyo baabuurku Soomaaliya ku gali lahaa yaa hadda kollay uu raadinaya macnaha time frame-ka marka la isku aadiyay wali Addis Ababa kama uusan bixin Addis Ababa wali kama uusan bixin waxaan rabaa ciidamada new booliska iyo ciidamada booliska dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo madaxweynaha dawlad deegaanka Mustafa Cagjar iyo madaxweynaha koonfur galbeed iyo dawladda goboleedka Puntland iyo Somaliland naftirkeeda dawladda Soomaaliyana ninkan waa gacan ku dhiigle waa in Interpolka hadda la soo gelin doonaa oo sawirkiisa la soo dhigi doonaa meesha ugu horreyseen hadda cadaaladda weydiisanayno waa dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia meesha uu sii mari doono kallay diyaarad ma raacay diyaarad ugu dhamaa diyaarad tii Addis Ababa ugu dambeysay meesha uu hadda sii mari doono ee baabuurka uu ku mari doono waa dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia mudane Mustafa Cagjar iyo dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Addis Ababa manhunt lagu sameyn karo is a big city laakiin kuma noolaan karo because hal meel bay Soomaalidu ka degan tahay meeshaasna already Facebook iyo YouTube bay daawanayaan dawladda Mareykanka ninka cirbad dhuntay amal bay u raadinayaan already ninka hellow waan idin soo gelin doonaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo ninka madaxiisa waxa la kor dhigi doonaa lacag gaarayso kumanaan kun oo dollar lacag gaarayso dhageysta ninka waa inaad ku yaacdaan oo ma garanaysaa haddaad askari tahay iyo haddaad nin dawlad u shaqeeyo tahay iyo haddaad shacab tahay waa taajiraysaa aad baa u taajiraysaa aad u dhageyso waliba waxa laga yaabaa 200,000 milyan inay madaxiisa saaraan Mareykan waxa weeye waad ka carari kartaa laakiin ma dhuuman kartid ninka hadda sawirkiisa sii save garayso inta ay daawanayso Ethiopia joogto inta koonfur galbeed joogtana hadda isa sii diyaariyo iyo Soomaaliya joogto tawaataad ku taajiri lahayd tawaataad Mareykan ku imaan lahayd hadalkayga dhus ninka sawirkiisa diyaarso sii printer garayso waalad kaaga gasho lambarka la soo wici doono iyo safaaradda aad la xiriiri doontaan maaha inaad degdegaysid maaha inaad kaamera ku qabanaysid waxa weeye ninkaas waa inaad dabagal ku samaysaan si hoose oo degan dhiilkaaga waa inuu close noqdaa way hadalkayga dhus dhiilkaaga waa close buu noqonayaa waa inaad ninka meesha uu jooga markaad ogaatid oo hubsatid iyo cidda qarinaysa Ilaahu maadeerkiisa aad taajiraysaa dollar bay Mareykan ku siinaysaa waxa laga yaabaa adiga carruurtaada in cadaaladaad keentay Mareykan abaalgud kaaga dhigan inaad Mareykan imaad hadalkayga aad u dhageyso sawirkiisa hadda sii save garayso waalad kaaga gasho isa sii diyaari uu soo socdaa Soomaali meel kale uma soo socdo Soomaaliyana dawlad ba ka jirto bagaraysa Soomaaliyana dawlad ba ka jirto oo aad iyo aad uga jirto fursadan aad baad uga faa'iideysanaysan hadalkayga dhis gabadha Soomaaliyeed muno waa inay cadaalad heshaa weeye ninka mindida ku jarjaray California irbad baa la isku dilaa ninka waanaan aragnaa on TV-ga ka daawanaa asoo irbad lagu durayo oo irbadii sunta intay ku durayaan cadaaladda gabadhaasi barnaanka loo keenayo
oy beesha caalamka iyo Soomaali oo dhan iyo familka gabadha Soomaaliyeed oo dhan ay daawanayaan asaga oo indhaha mirig ka siinayo oo aakhira u socdo Mareykan meesh Soomaaliya la yaabtan xabada la isku dilay Mareykan irbad baa la isku dilay adoo kursi soo taagan oo TV laga duubay irbad lagu diray asoo ku arkayo niisa ku fiirinayaan yu dhimanaya Ameerika waa sharci ka jira Ameerika weeyaan marka waana sawirkiisa qaadataa jeebka gashataa markuu Soomaaliya soo gaaro kala Itoobiya qabsada waa kanoo kala way ka loo baahay in afduubataan lacagna ku furataan hadalkayga adreyso dowladda Soomaalida Itoobiya is diyaariya $2 milyan bay idin dhex socoto $2 milyan yaa idin soo dhaxmari doonto oo koonfur galbeed iyo Soomaaliya u socoto yaa idin soo dhaxmari doonto nin walba hadda sawirka Itoobiya hadaad joogtid iyo jigjiga iyo wadada Soomaaliya gasho haddaba baabuurta caasiyada sawirka qaata sawirka jeebka gista waxa weeye caasi walba iyo baabuur walba Soomaaliya u socdo iga gaarsiin rag xuduudda joogo baabuur walba Soomaaliya u socdo sawirka ninkaas fiirsada